24 December shalay toole 24 December 2022 ayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliska qaybta guud ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen abaara 8 saac 20 duhurnimo waxaa gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cali Maxamed inay Qadiijo Cali Aadan 2 jir ah ku dhashay baar dheere laakiin degan degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir eedeysanaha gacanta lagu soo dhigay ayaa kamid ahaa ilaa 3 eedeysane oo geystay fal tacadi ah oo loo geysanayo qof dumar ah gabar waliba dhalinyaro ah aad u yar oo waliba inta tacadi loo geystay video laga duubay hadana social media la soo dhigay videogaas oo ku baahay baraha bulshada iyo siin aan la sameeyay booliiska gobolka Banaadir ay sameeyeen booliiska qaybta guud ee saldhigga booliiska baar dheere ee gobolka Gedo qaybta booliiska gobolka Gedo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa saamaxay in xogihii la isdhaafsaday oo eedeysanihii oo kamid ah eedeysanaha la qabtay oo kamid ah 3 eedeysane falkaas geysatay ayuu ka soo baxsaday goobtii falka lagu geystay isgacansiin ciidanka booliisku ay isgacan siiyaan howlaha noocaas iska gacan siiyaan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ayaanu gacanta ku soo dhignay eedeysanahaas sidaas si la eg labada eedeysane kale oo falka ku eedeysan iyagana ciidanka booliisku ku raad jooga guud ahaan dalka oo dhan xitaa haddii dalka ka baxaan meeshii kale oo ay tagaan eedeysanayaasha cadaymaha loo hayaahay inta badan meel kasta oo ay tagaan waxaan awood u leenahay inaan dabagalno oo ka soo qabanno marka kiiskaas sidaas u dhacay halka eedeysanaha gacanta lagu hayo labada eedeysano kalena baaristooda la wadaa dhibanihiina wuxuu ku sugan yahay gobolka Gedo magaalada Baardheere halkaas oo iyadana cadaaladda ay ogaan doonto sida wax u socdaan ummadda Soomaaliyeed oo kale tan wargelinayna kiisaska noocaan ah tacadiyada noocaanahi waxaad moodaa xogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalameynaa maadaama aan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guudaan hay'adaha ammaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'aan la dagaalano cid walba oo tacadi iyo dhibaato u geysanaysa ummadeena eedeysanaha dhibanaha falka loo geystay oo liiraado Faadimo Maxamed Mustaf ina Iisha Cabdi Cabdiraxmaan 20 jir ku dhalatay baar dheere deganna baar dheere ayay eedeysanayaashaasi falkaas u geysteen cadaaladdan horkeeni doonaa eedeysanaha aan hayno iyo eedeysanayaasha kale baxsadka ah biidna Ilaahi Alcaali cadaaladda ayaa la horkeeni doonaa hadii Ilaahay yiraahdo mahadsantiin dhanka kale waxaa jiray in shalay 24 December 2022 degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir gaar ahaan Sanca oo askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku dilay dad shacab ah sidoo rabaha ku micneeyo falku sidoo rabaha u dhaco laakiin dad shacab ah ayaa ku dhintay falkaas askariga ciidanka booliiska uu geystay waxaana ku dhintay Dibane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Adow ina Faadimo Maxamed Hilowle oo 40 jir ah waxaan ummadda Soomaaliyeed ku noqon gobolka Banaadir iyo cid kasta oo dareynaysa u sheegaynaa ay ehelkii marxuumkii falka shalay ku geeriyooday in eedeysanaha gacanta lagu hayo ciidanka booliiskuna ama ciidanka ka tirsanaado ama ka baxsanaado eedeysana kasta oo fal dambiyeed geysta sidii rabana ku dhacaan waxaanu wala dagaalameynaa waxaan gacanta u gelinaynaa hay'adaha cadaaladda garsoorka awoodda u leh si uu maxkamadda awoodda u wajaho eedeysanahaasna isna waa xiran yahay cadaaladuna wajihi doonaa dadka ehelka ah iyo aqribada iyo dadka saaxiibka la ahaa marxuumka waa uga tacsiinayna waana ka xunnahay